waxaan degayaa saddex ka mid ah hodheelada ugu la yaabka badan Ameerika, taasoo macnaheedu yahay inay leeyihiin xayawaano duurjooga, experience cajiiba iyo meelo remote ah. Kan waa mid ka mid ah fiidiyowyada ugu xiisaha iyo cabsida badan ee aan abid sameeyey. Sida awgeed waxaan rajaynayaa inaad si fiican ugu raaxaysan doontaan muuqaalkan. Hey! Hey! Help! Gavin! Gavin! waxaan ku bilaabaynaa Oak Meadow Ranch. haddaba ka hor intaynaan samayn activitiyada xiisaha leh ee aan qorshaynay, aan galna qolkeena oo si degdeg ah u soo eegno. Wagoneer Suite, here we go. markii aan soo galay, waxaan markiiba ku farxay sida uu u weyn yahay qolkaygu. weliba baleega daaqadayda dibadda waxaa jooga oo aan ka arkayaa kangaroos dhab ah. Awesome. sariir aad u raaxo badan, laakiin waxaan la yara yaabay waayo weligay ma arag kaabashkan iyo kaarooga lagu soo dhaweynaya qofka. waxaan ula jeedaa waa wax lala yara yaabo soo maaha. waxay u eg tahay inaan loogu talagelin dadka. ugu dambayn waan ogahay in laga yaabo inaad isweydiiso maxaa ka dambeeya daahyadan. waxaan jeclaan lahaa inaan hadda idin tuso, laakiin helikobtartii qaadisa ayaa halkan imanaysa daqiiqada yar kadib si aan u raaco. fiyugan hadhow baan idin tusi doonaa. diyaaradda helikobtarta ahayd way timid si ay ii qaado, kaasoo ah ka ugu horreeya 5 activity aan samayn doono. runtiina weligii hore umaan raacin helikobtar, marka aad baan u warwarsanaa, laakiin sidoo kale aad baan u faraxsanahay. halkan waxaan si fiican oo heer sare ah uga arkay dhismaha oo dhan. weliba markaan sidaa hoos u eegayba waxaan arkay guriga Bill Gates. duulyahayga Craig wuxuu ahaa mid cajiiba. wuxuu hore uga mid ahaa militariga, markaa waan ku aaminay naftayda. helikobtartu way xiiso badnayd, laakiin waxaan dareemayay in activity-ga xiga ka sii xiiso badan doono. I'm about to swim with otters. Is there any advice you have for me before I do this? You might get rocks in your butt crack, in your pockets, super fun things like that. Wait, what? Yeah, just warning you. They welcomed me and their family. I'm gonna play like an otter. waxaan hadda la dabaalanayaa otter. waan ku raaxaysanayay. waxay xitaa hayeen qoryaha yaryar ee biyaha oo sida muuqata ay jecel yihiin in lagu buufiyo. Guys, these are so cool. Oh, who found my GoPro? Oh, right in my lap. He's throwing on my back. Oh, they found my pockets. Ah! That's my zipper. Hey, that's my zipper. Oh my, Hermione. Hermione. They're like water puppies. waa dhala yaryar oo kale. xataa wax loo siiyaa sida dhalaha yaryar. kaasi waa beed la kariyey, waa borotiin wanaagsan. waxaan ku noqday qolkayga si aan aniguna wax u cuno. waana sugi kari waayeyba inaan eego waxa ka dambeeya daahyada daaqadda. maxay noqon kartaa talow? aan aragno. sida muuqata magacyadoodu waa Jigsaw iyo Basalis, kuwaasoo runtii ah magacyo wanaagsan oo geri ah. waxaa loogu talagalay in la siiyo khudaartii aan hore u aragnay. Jigsaw waa geriga yar, Basalisna waa ka weyn, laakiin hadda geriga weyn oo keliya ayaa halkan jooga. aan isku dayno inaynu siino khudaarta. Puzzle wuzzles. haddaba anigu waxaan isla markiiba ka helay quudinta gerigan oo waxaan noqonayba saaxiibo cusub oo wanaagsan. saaxiibayaal waxaan ku raaxaysanayay sariirtayda, baleegayaan arkay. ka hor haddaba intaanan wax siin gerigan yar, ma ku mahadnaqi karnaa fiyugan? waxaan ula jeedaa dhab ahaantii yaaba u baahan YouTube markaad haysato National Geographic toos ah oo ku dhex yaalla qolkaaga. laakiin adigu haddaad naga daawanayso YouTube, fadlan subscribe-ta noo saar. halkaad naga daawanaysana hoos nagula wadaag. aad baad mahadsantihiin. waan ka helay geriga. We'll let you have your privacy. I kind of need my privacy too. waxaan aad ugu faraxsanaa inaan ag seexdo gerigan habeenkan. waa inoo berri subaxa. waxaan samayn doonaa waxyaabo kale oo xiiso badan. subax wanaagsan. haa, sidaasaan ku soo kacay. saaxiibayaal waxaan filayaa inuu albaabkayga joogay slot. Hello. Good morning. okay, ma ahay slotkii. tani waa Kristen, waa mulkiilaha. aad bayna wanaagsantay. Yes, of course.
looks good. Guys, I think that's the sloth. runtii wuxuu ahaa sloodkankaan aad ugu faraxsanaa inaan qaado quraacdana qolkaygii igu keeneen And my family showed up. I mean, it was just my day today. Ooh, thank you. Wow. haa saaxiib yaal waxaan halkan la joognaa magacii Sir Winston the Sloth. waa mise jir He's 21 this month. waa mid degan soo maaha iguma soo boodi doono Teapot towards you. He's going to reach around with one arm. We're going to place him in your arm. Oop, let go, buddy. Under his bum. Like this? The more support you give him, the less you'll feel him, and he'll kind of relax. waan ka helayba Sir Winston tanina runtii waa experience gaar ah tani waa laabgelintii ugu diiranayd abid noloshayda So what's his favorite pastime? Oh, Sir Winston? Yeah. Oh, he just chills. He just hangs out. waxaa sidoo kale nasiib u yeeshay in Sir Winston uu igu dul seexdo okay saaxiib yaal hadda waxaa la gaadhay waqtigii activity-ga ugu weyn intaan halkan joogay wuxuuna ahaa mid special ah waxaan hadda bilaabaynaa toorka lanagu tusayo duurjoogta iyo cashada kani waa safar lanagu soo kala tusayo dhammaan xayawaanka ay halkan dhismaa ku hayaan oo xataa waan quudinaynaa oo la ciyaaraynaa Just give it to him. Yeah, perfect. There you go. Mouth moving is so funny. way iska caddahay in dhammaan xayawaanka halkan jooga aad loo jecel yahay oo si wanaagsan loo tababaray waxaana lagu keenaa da' kala duwan Baby Yoda. Baby Yoda. 6-year-old Finnick fox. Cedric's gonna be jealous. He kind of looks like Cedric's face. A little bit. Yeah, sorry, Mom. I don't really see the resemblance. si kastaba ha ahaatee markan aan soo aragna xayawaan duurjooga oo kale We're a friend. waxaan arkay xayawaan badan oo cajiiba safarkan laakiin waxaan filayaa in kuwa soo socda ay yihiin kuwa favoritekayga ah These are rough lemurs and brown lemurs. So we actually have different color variations here. So we'll talk about that when we get inside. And by the way, your hat, you might want to take that off. I'm a little nervous, but this is fun. So here we go. All right, here we go. So some of them might jump in here on you. They're just switching a ride. You're perfectly safe. It's okay. Mom? Yep, open your hand. Let them get their snacks. Tricolor ruff is Prince William. You have Duke Edward. You have saaxiib yaal dhogortoodu aad bay u jilicsan tahay aadna way qurux badan yihiin Nope, I'm going to give them to him. Mom, you good? Look at they share the food nice. sometimes. Right on cue. martida hore waxay awood u leeyihiin inay uga dalbaan alaabta ku jirta liiska wishlistiga Amazon xayawaan kasta oo ay rabaan aan aragna waxa limerisku heleen They get excited? They do. Ito Rocky Slow Feeder. Wow. Always want to maintain your dominance with a cat. You do that by staying above eye level. Once you're below eye level, they no longer fear you. These guys have claws and fangs. waan jeclahay bisadaha Oh, look. kaasi mahari macabba may maaha waa serval iyo kerakal waxaan go'aansaday inaan labadaba waqti la qaato inkastoo aan ka yara baqayay laakiin dhawarkan ka yara taabtay haa waa dhawarka Okay. waan ka xumahay waan ogahay intaasi ahayd xoogaa qosol ah laakiin kadib markii aan ka tegey kerakalka waxaan arkay geel kadibna waxaan u dhowaanay gerigii He's very gentle. Michael, feel how tight those muscles are. Yeah, they're strong. We gotta carry all that weight. saaxiib yaal midin tusi karaa waxaan arkay markaan muuqaalkii dhidkareynayay madaxa basal wuxuu dherer leegyahay jirhkayga inta sare taasi waa waali xayawaanka ugu dambeeya ee aan ku macasalaaminay waa mid aad uniik u ah bahalladan yaryar aad bay u qurux badan yihiin waxay samaynayaan dhawaqan yar sababtoo ah waxay ku faraxsan yihiin cuntadan waa saaxiibkay He likes it. kadib safarka xayawaanka waxaana loo keenay casho macaan oo ay la socdaan macmacaan iyo cabitaan maxaana ka wanaagsanba inaan habeenkayga ku soo gebagabeeyo anigoo sidan u haya kaanguruu yar ku soo dhowaada haven waa meel aad uniik u ah oo la dego oo aad ag seexanaysa xayawaanada ugu khatarsan saaxiibayaal waan arkaa waa libaax waan iska kaftamayaa waa taallo
laakiin ha warwarin waxaa halkan jooga wax taallooyinka badan sida aad arki doontaan. ma dhici karto waxaan ku tusi doonaa qolka, laakiin marka hore eeg bal waxaan u soo galay. tani maaha bisadaha guryaha lagu dhaqdo, waa shabeel dhab ah saaxiibayaal. waan ka baqayaa inaan halkan fadhiista xataa. isugu bal mid kale halkaa jooga muxuu samaynayaa? There's one over there too. Clean himself. waxaa jooga 3, waa inaan aragnaa 3daba. oh kan weyn wuu qurux badan yahay, waan ka baqayaaba. shabeelka cad uu ii soo dhawaaday, waxaan dareemay in noloshaydu khatar ku jirto. taasi waxay dhici doontaa dhowr jeer safarkan intayn ku guda jirno, sidaad arki doontaan. sidoo kale waxaan si degdeg ah u arkay in shabeelladani ay yihiin qaar aan la isku halleyn karin. hay saaxiib, isteji, muraayadda ha soo jabin, biisaan kuu dalbay aniga hay cunin. waxay sidoo kale wanaagsan tahay inaysan lahayn khaanad yar oo ay Please. Oh! About to bust down the wall, bro! markan waxaan ogaaday inay tahay wakhtigii ugu fiicnaa aan qolka ka bixi lahaa si aan u tago oo u soo eego qolka libaaxa. dhanka libaaxu runtii waa dhinacan. waxaan hadda joogaa qolka labaad. inamarya aan soo eegno. waaw, eeg barafkao dhan. okay, barafku aad buu fidsan yahay. talo ma ku jiraan libaaxya gudaha? may, qolkan kuma jira libaax, laakiin dibaddana kumaan arkin. waan la yara yaabanahay sababtoo ah waxay u eg tahay dhul baadiya oo barafa halkani. maan arag libaaxyo, taasoo sidoo kale iga cabsiisayba. anoo u malaynayay in libaaxyadu ay isku qarinayaan meel aan ahayn meeshii loogu talagalay. taasina waaba wax la yaab leh. kumaan arkin wax libaaxya ah aaggan haddaanay ku hoos jirin barafka mooye. taasina welwel iyo cabsi bay igu sababi kartaa. markanaan halkan ku soo laaban doonaa si aan u eegno in libaaxu yimid. intaa kadib waxaan go'aansaday inaan u cararo qolkaygii shabeelka sababtoo ah waan baqayay oo dhexmoonayay. waxaan u malaynayaa in qolka shabeelku uu qalmo. inaan room tour idinka sameeyo oo aan idin wada tuso. markaad sidaa u soo gasho waxaa ku taalla meel casri ah oo wanaagsan. daaqadda dibaddana waxaad ku haysataa shabeel weyn oo qurux badan. kadibna dhankan bidix haddaad u baahato musqusha waxaan ku haysanaa musqul tob ah. A solid restaurant. sidoo kale markaad shaawarka ku jirtana waxaad xataa ka arkaysaa shabeelkii. sariirtani waa mid aad u raaxo badan. waxaa run ahaantii sbiishal ka dhigayaana waa fiyuugan. waan gaajooday saaxiibayaal, waxaan doonanayaa cunto. laakiin ka hor intaanan taas samayn waxaan rabay inaan iska duubo muuqaallo khatara iyadoo shabeelladu daba socdaan. weliba waan ogahay in muraayad noo dhaxayso. fulay waad igu sheegi kartaan, laakiin ilaa aad halkan timaado oo aad shakhsiyan u tijaabiso way adag tahay inaad sharaxdo cabsida ay leedahay. shabeelkaasi wuu qurux badnaa, sidoo kale wuu cabsi badnaa. laakiin iminkayna marya aan soo eegno qolka libaaxa oo aan aragno haddii ay yimaadeen. Oh my goodness. Male lion over there? Oh my goodness. Bro, he is massive. tani runtii waa cabsi saaxiib. Hi. dhammaantiin waan ognahay libaaxu inuu yahay boqorkaan lala tartami karin ee kaynta. inaan sidan ugu dhowaanno waa waali. waxaan haddaba markiiba arkay in xayawaankan cajiibka uu xoogaa ka wen yahay shabeelka. waxaan sidoo kale ogaaday in libaaxyadu aanay aniga igu mashquulayn marka loo eego shabeelladii hore. eeg xayawaankan quruxda badan. sidoo kale may dhexmoonayaan talow ma hubo, laakiin waxaan dareemayaa inayna la baran jawigan. waanan ku qaldanaan karaa, laakiin waa sidaan dareemayo. laakiin waxaa xaqiiqo ah in libaaxana aanu i jeclayn. She looks nice. Aww. waxay u eg tahay mid wanaagsan. ma jiraan wax khabiiro ah oo libaaxa ku takhasusay? qaybta kommentiga waxaad iigu sheegtaan intaasi ahayd mid saaxiibtinimo ama inaan ku dhawaaday inaan casho noqdo caawa. halkan waxaa ku qoran in lagaa qaaday $200 oo ganaaxa haddii aad ku dhiirigelisay inay ku soo boodaan muraayadda. anigu keliya waan ag marayey, kadib baan ag fadhiistay. ma ogi intaa loo tixgelinaya inaan ku dhiirigeliyey. sidoo kale waxaan ka ogaaday bisadaha inay dareemi karaan cabsidaada. aan si cad iskaga sheego, way dareentay cabsidayda. waxaan ula jeedaa sawirkaygan waa la ag dhigi karaa kelmadda cabsi ee digshinariga. laakiin haddana sidaasoy tahay waxaan lahaa geesinimada aan ugu adkaystay si aan u duubto muuqaalkan intara ah ee cabsida. waxaan ka soo baxay halkaa iyadoo wadnuhu afka yimid. iminkana waxaan raadinayay cunto aan caloosha ku qaboojiyo. waan u naxayba darawalkan Uber Eats-ka wada. Yes, sir. Thank you so much.
waxay ahayd hadda waqtigii aan nasan lahaa mana ku mahadnaqi karnaa saaxiibayaal sida cajiibka uu yahay fiyugani waxay ahayd mid raaxa leh halkani markaad sidaa isku duuduubto inkastoo aan ku riyoon karo riyooyin xunxun saaxiibayaal waxaan ku soo kacay shabeellada oo islaynaya malaha way ciyaarayaan ma garanayo waxay u eg tahay wax ciyaar ka badan Bro. Oh my goodness. I just woke up to this, guys. Are they playing? hurdadan dib iskaga noqonayaa hadda saaxiibayaal waxaan ku soconnaa Fairbanks Alaska si aan u soo qaadano maalinta ugu khatarsan fiidiyogan anigu weligii hore umaan tegin Alaska waxaan ku suganahay Kena Hot Springs Resort waxaan ka soo duulay madaarka Fairbanks taasi waa wadadii aan ka soo galnay qabow waan u dhimanayaa waxaan u baahanahay biyo kulul waxaan markiiba bartay inay qasab tahay inaan galofisii xidho markastoo aan dibadda u baxayo laakiin si kastay ahaato waan isdiiwaan gelinay oo waxaan u soconnaa qolka nasiib wanaag qolkaygu waa kaa waxaana soo kaxaystay saaxiibkay Gavin sababtoo ah weligii maan tegin Alaska iyo sidoo kale activity-yada aan samayn doono waxaan filayaa inay aad u xiiso badnaan doonto markuu saaxiibkaa kula socdo okay haddaba markaan daacadda ka hadlo qolkani sidaa cajiibu ma aha laakiin waxaa yaala 2 sariirood miis iyo fiyowgii Alaska saaxiibkay iyo masquul iska caadi ah saaxiibayaal qolkan umaanu iman China Hot Spring Resort waxaan u nimid activity-yada okay diyaar baan nahay waa inaan dhaqaaqno waxaan haysanaa 5 activity oo cajiiba safarkan laakiin maadaama aanan ka soo jeedin Alaska xitaa bixidda dibadda safar baan ku dareemayaa daacadii madxafka barafku saacad ma laha markaa waxaan iska dhex marmaraynaa oo eegeegaynaa hoteelka Bro, what is that? waxaan helnay hot spring ama il biyo kulul aad baan u doonayaa inaan hadda ku boodo sababtoo ah waa qabow waxaan maqlay in lagu caafimaado So, do you have any ailments? No, but who couldn't use more healing? si kastaba ha ahaatee waxaan sii wadnay ku dul socodka barafkan Alaska ee adag oo runtiina waxaan doonayay inaan dareemo That was a bad idea. I got the wind knocked out of me. haddana waa waqtiga activity-ga koowaad waa museumka barafka ee Aurora derbigan halkan waxaa ku jira 65 tan oo baraf ah waxay u dhigantaa 143 kun oo pound ma hubtaa taas anyway eega nimankan barafka ah ee dagaalamaya waa khatar runtii waxay u eg tahay ninkan laga bediyey sidoo kale waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo ku dhex yaala museumkan barafka sida qolalkan oo kale kani wuxuu noqon karaa qolka ugu khatarsan ila daawo Welcome to my crib. ma qurux baa mise ma aha ugu qabo sariirtayda waa sariir barafa koodhi wuxuu ku soo qaatay dalxiis cajiib ah museumka barafka waxaan u soconnaa isha biyaha kulul hadda bal ka waran ilaa heerkay kulushahay biyaha ka soo baxaya dhulku qiyaastii waa 165 si aan arrinta xiise ugu sii yeelo waxaan filayaa inay fikrad wanaagsan tahay inaan u ordo isha biyaha kulul oo qiyaastii 100 yaardii jirta iyadoo weliba aanan shaadh xidhnayn ma garanayo waxaan ula jeeday tan waxaan u malaynayaa inay ka dhigi doonto isha biyaha kulul mid ka wanaagsan markaan galaan oo qabow sidaana waxaan ku soo gaadhnay dhismaha barkadda gudaha halkaas oo ku yaala albaabka isha biyaha kulul ee dibadda Oh, now you're gonna experience the pain I just endured. All right, let's go. Don't slip, don't slip. Guys, that's the hot spring. It smells weird. Bro, this is insane. Oh. okay waxa ugu horreeya ee aan ka bartay ishan biyaha kulul ayaa ah maadaama oo heerkulka uu ku dhacayo isbeddel aad u daran markaad biyaha ka soo gasho dibadda codkaagu wuxuu ekaanayaaba sida jambaansiiga laakiin aad bay wanaagsan tahay isbarbardhigga qabowga iyo kulaylkuna waa mid aan caqligal ahayn waxa kale oo la yaab kalena waa markii aan kor eegay waxaan arkay Northern Lights-ka sidoo kale haddii aad madaxaaga ka saarto biyaha kulul wax ka badan 20 ilbiriqsi wuu barafoobayaa waa inaad madaxaaga hoos gelisaa ugu yaraan 1 mar daqiiqadiiba haddii kale timahaaga iyo madaxaaga way barafoobi doonaan haddaba ka hor activity-geenna xiga waxaan ku qasbanay inaan cuno salmon Alaskana kaasoo run ahaantii ahaa salmonkii ugu wanaagsanaa aan abid cuno noloshayda
waxoogaa waan yaro dhexmooday habeenkii laakiin bal qiyaasta saaxiibayaal waxaan u baxaynaa si aan u soo samayno dog sledding ka hor intaanan tegin waxaan ku qasbanaa inaan si degdega mar kale ugu soo kululeeyo heerkulka jirkayga isha biyaha kulul wax loo dhigaa ma jiro qorax soo baxa Alaska ee 10 subaxnimo markaan ka baxna halkan waxaan lugeyn doonaa qiyaastii 1 mayl si aan u tagno meesha aan ku soo samaynayno activity-ga dog sledding-ka halkaas oo ah dhinaca kale ee buundada aan ka soo galnay waan soo yara daahnay waa inaan ku horadno buundada waxaan rajaynayaa inayna weli bixin waqtigii saxda ahaa baan soo gaadhnay laakiin muuqaalka ayida halkan ku xidhan oo dhan aad buu iiga yaabiyey Hi, puppy. Hi. Oh, you're such a nice doggy. maan sheegi karin waxa uu noqon doono activity-gani waayo weligii tan hore umaan samayn laakiin isla markii ay shaqaaluhu soo baxeen si ay u diyaariyaan bahallada ayidu ay jiidayaan dhammaan ayida ayaa bilaabay inay farxaan sidaad arkaysaan ayidu aad bay ugu faraxsan yihiin inay sameeyaan riixitaanka barafka Some of them are getting hooked up. waxaan u malaynayaa inay halkaasi tahay dhanka kaynta ee aan u dhaqaaqayno waxay noo sheegeen in la diyaariyey markaa waan fulnay Oh my. These dogs are flying. tani waa mid aad u cajiib ah aydan waa ay si fiican u shaqaynaya iminkay ammaan tahay runtii gacmahaygu waa baraf aada kani waa activity aanan islahayn waad samayn doontaa weligaa laakiin hadda way kana anigan samaynayaa isla markii aydu sameeyeen leexashadii ugu dambaysiina waan sii salaamay maadaamay na qaadeen saaxiibayaal haddaba markan waxaynu aadaynaa kalluumaysiga barafka Alaska oo sidoo kale isaguna ka mid ah activity-yada aanan marnaba islahayn noloshaada waad samaynaysaa ninkan hagi doonaa waa ninkan oo ahaa mid aad u wanaagsan waxaana ku dhashay oo ku barbaaray Alaska Hey, you say howdy even though you're from Alaska? I do. Howdy. Let's go. Howdy. xarada ayaa imika naga dambaysa sidaad u jeedaan way barafowday aad bay baraf u tahay runtii It's probably 3.5 feet thick of ice. ma u malaynaysaa inayn maanta wax soo qaban doono haa waan filaya inayn wax soo qaban doono aniguna sidaasaan rajaynayaa sababtoo ah waxaan u soo safray 10 mayl arrintan sidoo kale waxyaaba aad soo qabsato waxaad markaaba ku diban kartaa moofo la qaadqaadi karo si aad u cunto isla markiiba qaybta hore muuqaalka maan duubin laakiin saaxiibkay gaafin galofiskiisa waxay kaga dhex dhici gaadheen biyaha barafka ah taasoo ay warwargelisayba sababtoo ah wax kasta oo halkaa kaaga dhaca dib uma soo saaran kartid laakiin waa marka laga reebo bahalka kalluumaysiga ee loogu talagalay kaasoo Michael noo sharxi doono sida loo sameeyo All right, thank you, sir. I got something. Just kidding. taleefankayga uu duulay waxaanu ku dhex dhici karayay biyaha taasoo noqon lahayd mid aan wanaagsanayn laakiin si kastay ahaataba kalluumaysiga barafka ayaanu si ayar oo bilownay laakiin waan ku kalsoonaa inaan wax qaban doono maanta Michael weli waxba muu qaban sidoo kale Gavin muu qaban aniguna waxba maan qaban dhammaantay waxaan fadhinay dhulkan qabow markaa waxaan weydiistay Gavin inaan isku beddelno meelaha aan fadhino si aan bal u eegno inay taasina caawiso He robbed us then for a second, but maybe the fish let go. Go ahead, reel it up and see if you still got bait. okay Gavin markan waxba u qabsaday laakiin si degdeg ah uma jeedin Oh! Wait. I think that's on the ice. okay saaxiibayaal haddaba kadib 3 saacadood nasiib darro waxba maanu qaban taasina waxay ahayd markii noogu dhoweyd aanu kalluumaysi wax ku soo qaban karno saaxiibayaal wax kalluuna weli maanu qabsan saaxiibayaal warka murugada leh waxa weeye inaanu qaban fish laakiin sidoo kale warka farxadda leh ayaa ah in Michael noo ogolaanayo inaan godka barafka qodno We'll see. Gavin, you can do it. saaxiibkii Gavin ayaan u diray waayo waan ka cabsanay inaan barafka ku dhex dhaco inkastoo Michael noo xaqiijiyay inaan ku dhex dhici doonin Oh! You alright? He made a hole! haddaba kadib markaan godka qodnay waxaa la gaadhay waqtigii activity-gayga ugu dambeeyey oo ah snowmobiling ama mootada barafka waan kori doonaa taasoo aanan ka warqabin inay ku noqon doontaba dhacdo aan la yaabo ama iga nixisa Wait, why are you wearing that screen mask again? Just because the wind. Okay. It doesn't scare away like the moose? ilaa imika ma garanayo sababta ninkan yahaagaya uu xidhan yahay maaskigan halkii uu ka xidhan lahaa mid caadi ah haddaba markaa waxaad ka bilaabaysaa wadida mootooyinkan ama inaad raacdo meel bannaan oo iska caadiya kadibna markaad dhaafto tareenkan Alaska waxaad u gelaysaa waddooyin cidhiidhi ah oo qurux badan oo dhex mara kaymaha duurjoogta ee Alaska taasoo daacadii ahayd experience qurux badan oo aan ku raaxaysanay laakiin sidoo kale waxa aanan ogeyn waxay ahaayeen in bahalladan mootooyinkan lagu kaxaysta barafku ay mararka qaarkood noqon karaan kuwa istaaga oo dhulka ku dhaga taasoo sababi karta waxaad imika arki doontaan
sidoo kalena waxaad xasuusanataa in arrintan ay dhacday intii aan ku guda jirnay 45 mirir aanu sameynaynay halkaasoo qofna aanu iga dambeyn. Hey! Hey! Help! Gavin! 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 Help! Ah! God help me. Please help me, God. Okay, waxaa laga yaabaa saaxiib yaal inaan ka yar badbadiyay baa laga yaabaa. laakiin waxaan maleeyay in beerku meesha soo gali doono oo cuni doono. Reerkaygana waxay u sugayaan gurigaygii. Sidaa darteed Ilaahay baan uga mahadnaqayaa inuu badbaadiyay. saaxiib yaal ilaa halkan haddaba haddii aad soo gaadhay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto. muuqaalkana like taad saarto haddii aad ka heshay. waa inoo iyo muuqaalada xiga aad badbaadsantiin.